مركلة يو ديو صوتي هكذا كسرتي وطوان كحماي محمد حاسي يسوى أدمو درين كيسو إنو آد وحسن يحي ما وهذا عمري لا يحسن شخصي أهان يو شقا أهان با سيكورون وحقوت المامو ملكو غوريا وحتي عبد الله ديري ودير ودوسي وارن وحيان فقرائنا والهلكرا taasi waa mid dadka aan ku xusay haddii aan dadkii qaxay ee dhibaatooday aan maskaxdoodii isbedelin in ay markhaati furaan waa iigu dhan tahay oo inta la heli karo qaar markhaatiyadoodii waa la hayaa qaarna waa dhimin in lala xidhiidho waa oqolahay yaa la xidhiidhaya iyo habkee loo xidhiidhaya in aynu farsamadaana gallo waa anna raali labada qodob ee sheekaduba horta ku samaysan tahay waa taariikh iyo baaxad inagoo markhaatiyadaana raaci doona dee horta taariikhihiina halkana way yaalla kuwa kalena waabayna ku dari karna kuwa halkan ku qoranina cidna beenin mayso kuwa kalena nool dee qaabinteena waa jiraanbe waynu ku dari karna waa markhaatiya ma diidin cadaymihii halkan waa ku jiraan inta imanka aan sheegayna wixii ay ka ogaayeen taariikhaha inay la weydiiyo oo lala xidhiiyo habkii suuragalaba oo guddi ahaan intaa isu tagta taleefonkula xidhiidha ah dabadeed ay waxay ogaayeen ka sheegaan anna waa igu dhan idinkoo la kaashanaya waxa halkaas idinku yahay maxamed xaashi wuxuu yidhi anigaa hod publish gareeyey waxaan taa ka leeyahay waxa la qoro ee suugaan ah laba qayb bay lahayd wasaaradihii markaa ka jiray soomaaliya ex soomaaliya indhowrja waxay ahayd wasaaradda tacliin wasaaradda waxbarashada oo iyadu qayb gooniya oo la oran jiray curriculum office ama xafiiska manaahijta oo waxa dugsiyada lagu dhigo macallimiinta qobta una daabacda oo uu haysan jiray xasan awdaahir qaali oo nool anigu hargeysa aan ku ogaa waxaa jirtay oo kale wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare waxay qaabilsanay wixii buug ah ee literatureka soomaaliyeed ee soo baxa iyo kuwo la ururiyey oo si cilmiyeysanba loo qoray oo gabayadii inta la ururiyey iyo xubnihii kale maansada haddana
weydii ma laga sameeyey la sharxayo ma ekeeya ku jira ma figures of speech wixii aynu oran jirnay oo dhan laga soo saaro iyana jaamacaddu iibsan jirtay jaamacaddu buugaagta sanadkaa soo baxa ee dadka qoraa ay keenaan waxaa loo saari jiray guddi qiimaysa ninbaa sheeko qoraya dee sheekadaas qiimay lahayd kuwan anigu aan qoray ee burqaynta gabayga iyo miisaanka maansada ka mid ahaa jaamacadda iga iibsatay manay publish garayn waxay u publish garayn weyday aniga lay weydiin maayo dadkii iibsaday gacanta waxaan uga dhiibay faatimo axmed aayo faatimo cureej oo iyada oo aan hawshaydaba la weydiinin oo waraysi kale laga qaadayo buug ay hooyadeed ka qortay oo la yidhaahdo saa waxay tiri waa hooyadeed bay ka qoraysaa and then she said ayaa nin wariyihii weydiiyey buugani ma qoraalkan hooyadaa aad ka urursay ma buraanburuunba mise xubnaha maansada kalena waa ku jira markaasaa waxay tiri involuntary waa ku jiraan xubno badan oo maansadeed buraanbur bayse u badin buraanburkana awjaama cumar ciise buug uu qoray wuxuu buraanbur ka dhigay halka ugu hooseysa miisaanka ee maansada soomaaliyeed ayuu awjaama cumar ciise ku sheegay professor cabdilaahi diiriyo guuleeday buraanburka halka ugu sarreysa ayuu yiri codkeedii internetka laga heli karaa telefonkeedii waa la heli karaa oo ay tiri oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee 76kii qoray buugga la yidhaahdo qorfaynta gabay 77kiina qoray miisaanka maansada soomaaliya haddaydaan maqala website-ka ayaa laga heli karaa oo dadkeedii la maqli karaa live-na waaba loola xidhiiri karaa marka ay noqoto publication ma waxa jaamacadii qiimaysay ee ay iibsatay 10,000 oo shilin oo berigaa joogaba laga siistay buugga ka kalena 10,000 oo shilin baa laga siistay ma waxa wax qiimeeya academic institution mise jariidad qof waliba wuxuu doono ku qori karo oo xiddigta October waa garanaysaan haddii la yidhaahdo wax dee mass production galay kan ima gelin waa kaa originalkii xabaddaa saa'ifka u soo baxdayo xabadiina 32 sano kadib bay gacanteeda soo waanan hibeeyeyga oo website-kan suray in ninka qof kasta oo Soomaaliya ka faa'iideysto markaa weydiintu waxay tahay ma jariidad baa wax qiimaysa aad garanaysaan oo xiddigta October la yidhaahdo mise jaamacad wasaaradii tacliinta iyo hidaha wasaaradii hidaha iyo tacliinta sare oo aad garanaysaan oo jaamacadaha oo dhan ku jira وكيف هكذا هيك سوكله أو لو قيمة أو جودي لوصار حديقة أكتوبر article كلودي بدي جودي لون سارج personal idea رأي غير شخصي أنا بالقول فعلي بالقول حياسيس بالقول مركي نقطة publication أو mass production كان في واحد أكتوبر كافي وفوق قيمة حديقة أكتوبر هي قيمة جامعة بايس بربرية أو قفكي مسؤول وحي أهي دريتي قدومية كحيجينك قيبت دقارة
maanta axay ah iyada iyo intii kale markhaatiya siciid saalax intaa wuxuu haystay qaybta kooxdii la oran jiray ifti intaasoo goorbaani dee aniga gaariyo oo qura maahee ninka dare la oran jiray baa isaguna wax ka qori jiray maansada miisaanka maansada waar dad badan baa hawshan nin waliba meel la taagan yahay bal maama debate qabataanu nin waliba wuxuu soo saaray keeno way suga geli weyey waxa aan halkaa uga dambeeya maxamed xaasin hadduu qiimayn iyo qadarin dee xidigtii oktoobar ka haysto heer jaamacadeed baan taagnahay oo markhaatigeedii noogyahay midka kale wuxuu ahaa ee uu maxamed xuseen dad aan ogeyn buu cabdilaahi xuseen ee markhaatiga ku darsan anigu waraysi uu bixiyey in uu isagu markhaati u qabsaday uu yidhi weliba dee markhaati ma ahay wuxuu markii la yidhi markhaati ma haysataa wuxuu yidhi waxaa haayo way jiraano waxay ahaayeen muuse galaal iyo b w andriy markaasaa la yidhi kuwaas way dhinteene markhaati kale ma haysaa wuxuu yidhi hadday dhinteen qoraaladoodii baa noo anigu kuwa nool oo imikadan lafteeda la heli karo halkaa combyuutarkaa haddaan galo aan dee idin maqashin karo qaar badan oo idinka iina aad dhegaysatay babaa laga yaaba marka ay noqotay application qodobkaasan ka qada midiyaha dee anigu midiya waxbuu qiimeeyaa ma aqaani laakiin waxbuu faafiyaa cid kastaaba guddi ha noqoto ama imaka kuwan ina hor fadhiya ama kuwa kale aynu damacnay inagoo aan dee ku kalsoon oo kalsooni buuxda siinay guddidan imika ina hor fadhiya inay bal taariikheeyaan hadday dee karaana ay gondadegaano bal waxa ay xambaarsan yihiin dee hoos ugu degaan in markaa go-aan ay bixiyaan wakti kastaba ha qaadato inay markaa dee midiya geliyaan ama idaacad ha noqoto b b c da uun ma jirto dee website maahe dee waxaa jira voice of America halkan qaar baa jira baa laygu raa t v iyo dee wakiilla u jooga meeshay doonta halno jaraa'id ha lagu qodo midiya dee waa mass media marka wax laga soo saaro dee in la faafiyo waxba dee kuma jirno b b c da dee wax specific ah oo anigu aan ogolaado ama u diido dee ma garanayo website kasta idaacad kasta waa ileen waxani waa wax dad inay meel kasta koona ilaa koona gaara waa wax loo baahan waa goormasi waa goorta go-aan rasmiyaad la helo oo dee guddiba xil saaranay guddidaasi ay hawshaa iyada dadka marka waxa aan oranayaa oo kusoo xidhayaa aniga oo aan cabdilaahi diiriye ahaan sida maxamed xaashi damiirkayga u taabanayo waxa damiirkaygu isiinaya waxa weeye inaan u noqdo daacad waxa aan bulshada u qabtay oo run ka sheego oo wax igu kalifaya been aanu jirin adna sidoo kalaan kaa rabaa oo aan dadka la wareerin
runta loo sheegaa wixii aynu dhignay wakaa waxa dambe soo socdaa halkii waxa aad tiri cabdilaahi diiri muxuu 1978 markuu daabacay ii rifargarayn waayay dee kumaan maxaan kuu rifargaraynayaa weerkiskaaga mabaan akhriin wax kaamaan qaadan waxaa referenceka la sameeyaa aad qofka dee waayo wixiisiibaad akhriin kuwa aan ku xusay qoraalkayga waa literature in general maxaa fiction yahay waxaan maxamed kuu rifargarayn waayay dee wax aan kaa faa'iiday oo qoraalkaagu igu biiriyey baan jiray masri baa ku jira raggaad garanaysa ee literature oo aan weerkiskoodii ingiriisi intaan ka bedelay af soomaali waayo drama waa maxay drama fiction waa maxay poetry waa maxay dee raggii ku xeel dheeraaday ee macneeyey ayaan siday u dhigeen intaan ingiriisi ka bedelay af soomaali ugu qoray si dadku bal saddexda qaybood ee literaturku ka samaysan yahay ay u kala gartaan saddexdaasoo aan u kala bixiyey magacyo dee haddii layga iibsadana loo qaadan karo haddii kaloo magacyo cusub loo bixin karo daraamaha oo kale jilid baan u bixiyey dee poetry iso iyadu waa manso marka anigu kaagama mas-uuliyin dee guuraad leedahay waayo waxba waanan kaa faa'iidin raggii aan waxoodii akhriyey ee macnaa ii sheegay ay weeyaan ragga aan buugga ku rifargay oo ragga aan acknowledgementka siiyey dee qof waliba gabadhii ii teebgaraysay kii typewriterka aan ka soo qaaday qofkii haddii aad dee wax soo bandhigto aan wax kaa helo xaasha kaagama mas-uugeen adna ha ku mas-uugin in aan dee waad joogtay shirarkii baynu joognay conferencekii 79 dhegaystaad ahaydoo dee waa kuwa xaan qorayna waa kuwan see price hadaad hayso miracle baa dhaya markaad dhegaysanaysid ee anigu warqadaa intaan qaybiyo dee akhriyayeen dee inaad objection tiraahdo dee tiraahdo maaha sidaasi waa sida aan ku soo noqono qodobkii taariikhinka waa midkaa imika midka inoogu horeeya ee hawshan meesha yaalla markhaatigii nool iyo hawsha halkaa taalla labadaas ayaa hawshaa gelaya waa taariikhay moy haddii guddidani sii gelayso hadday cid kale la kaashanayso taa iyagaynu arrinkaa u dhiibanay ana kalsooni buuxdaan siiy adigana waxaan filayaa sidoo kale waaye dee miyaa kule dabacadina iska cadkaas u hadlaya dhegeyso waa in dambe waaya haddaan kule waan sheegila inaad kulahay dacalitalahay waaya waa goob sport yani si aan u qaadanayo sidee sportsmanka u qaadanayo waayahay su-aasha waxaan doonayaa odayaasha halkan fadhiya marka taariikhda nimayoo laga hadlayo taariikhda yaa waxaa ku horreeyay yaa wax soo keebaa horreeyay iyo qiimayntu aniga laba sheeka ii kartaa laba sheeka ii kartaa marka laga hadlayo dhacdo history ah oo leeyahay anigu maalinta heblaayo baan halkaasi waxaa kusoo qoray waxaa barbar taalo adiguna gool baad soo publish garaysay inuu baa barbar taala macnaheedu ma aha inaynu leenahay xadiidka october waxa qiimayso maaha adigu xadiidka october waqtigaad kusoo qortay uu sheeg
يا الوقت الروح لا يسدد الوقت كما تسوق تحليل دكتور يواكل ها ميدي وحلايا هاي وحيوه يعني ما سبيلي أنا سلا عبد الشيء يستو ما سبيلي أسال شيء يستو هذا بين وحروفها في صباح أو ذلك ذلك وحروف قاعد يسيو أو كتير كتير هاي أرجع قرب بحرة وحروف شيء أنا جو وحش شيء وحيجا وحالك ولا سوي ما قال أول كان قال waxaan sheegay inaan ugu xeex gobaadkii markii ugu horeeyay publication sameeyay adigu la sidoo tabaarka publication sameeyay macnaheedu hadii qoraal publication oo daabacan baa sheegay oo dadku deebaad ku dhageysto waaya hadii taa October wax ka horeeyay ma jirin sidoo tabaarka ka ku daabacday iyo aanu kale xeex gobaadkii ku daabacay hadii aan soo hesho wax daabacan oo daabacan dadku deebaqay هذا خطوات واحدة ببليكيشن كمان كامل ما عليه ضمانها ولا قيمين ولا قيمين وحاس إسلامي لان قاعدين حسب مضر مثلا حديث كتب مثلا عبد الله قريش اللي بعد كده حديث كتب قريش يقبل جدا وحبي يعني اللي فايديسه فبهذا كده قاعد يقيس وحبي يعني اللي فايديسه إن حصته عيد وحن هرب بهذا الشيء شفته وأنا وحبي كمان فايديسه وقدرت كبله وحيجا عرك جه كبله رفالجرا علم كله لكن سوى كله إن حصت أكاديميك أولستيجي كتشفته إن تراعو عدة سوحة سيكقرت لحياة الضباط كيني كسوحة وحبوك قري الوز دلت الوقت كيباك قري كم وحلالو حكاية تبالي جلسة تبالي كبله مرجع كله لكن لحظات تاريخية أو موضوع كهربائي عيد كهربائي موضوع كهربائي حدا يدور تصي كهرباء بعرف حدا يدور تقتل ليلات حدا يدور يعني وحبة فائدة لا هذا المقام كسوت شيء ده يروح وين والمدن تاعي إن حصته أنا أقول بك قرآن كاتبتي قرآن كاتبتي أنا دحبت أطبق قرآن وحكي له بابليكيشن وحقوا ما يسكت فيه ما شاعي عبد الله ما يسكت فيه قلت له تعال وحكي كيف يديسه إن الموضوع وحكي عبد الله وهي ما كان القرية حليت أكتوبر وحمد ديسوس عليه عبد البكري قالوا سوى كابو لي حاجة بابليكيشن كان حديث أكتوبر ما كان القرية سئلة حصتابه إن الموضوع عاسي أنا قلتها كحلي وأنا بدي دته وأنا قلتها هاي وأنا معلم هاي وأنا حبي كيف وأستحوا حصل markaad buuga qoraysa inaad qortaabay oo tiraahdo way gawar yani anigu waxaan xusayaa inaad haddaan iminka qoraan soo saariyo 8 yani markii ugu horeysay arkay Cabdilaahi oo qoray ma hayna ka faa'iideysay waa kaan ku orastay taas ka yimid waliba way ku taagay Cabdilaahi oo su'aasha iga baqan dadka qarisay mooyi waaya waxaan leeyahay ilaahay imika tahay inaad wali tarto القرآن كاجا كوري يوتشر وطبعا هذو دول يعني العربية يا رجل وامد طلبات وما سبيلي هذا سلاح تشيش وهو بين وحروف عفية ما هم بين وحروف عفية وأحكي معها عبد الله وحن كهذا يا ما كان ليه بالخاتياش هالله يقول ما سبيلي هي بدي أديك سكتبان له أو أبكر أو بالخاتياش كوك أبصر في ولا إن الوحنا أقول لا بحي ما سبيلي الأليكسي waxaan doonayaa maasmiidii inay gaga caseeyo waxa sheegatay marxaatiyaasha wada ku qorantayna waa wada aqba in maasmiidii xaq baa iyo ogolo xaq Cabdilaahi adiga ku siiyay inaad maasmiidiyaha inanka Australia jooga iyo inantahay Burcad joogta wixii aad u sheegtay ya xaq baan leeyahay inaan iska difaaco ama wixii soo baxaa waxay sidii aad u sheegtay والماس بدي أنا جو قاعده إلا جو قاعده إن القلب يقشعت أنت هو تباس بدي عبد الله هو كذا وكذا بيبيس يا هذا أبو وبسنا هذا حتى سي الأضوء إستسي أدام بكفر في الصين يا ذري أقرأ حتى الماس بدي القرآن مرتب به وحيود قصة عتي ستر مخالتي دي أتركها كشتاء أنا بعد بري markaati cusub oo batay baa ka soo baxay qoraal quraal fama maalmo markaati cusub oo bari kuwii aan qootay baa la balay oo laashiis wareegtay
كو إن هذا الحق بان ولا يعني إن ما سبيله أي كشو إن وحي عاد وصوا على يسنته وما خاطياش فلان إيه إن وصوا على يسنده حتى كان صبر ما سبيله أنا وطلع هو ما أنا أقول لك وين وصوا بين إيه وأمجد نسكت دفاعي وهي ما سبيله هاشو أبد إلى أحد الواحد قال بي سي على قاعد هذا يلعبك اليريك والسعيد وحكسي وحاجة بالخاتية وهب الباهي بالكون ريده هب الباهي بالكون ريده وبالخاتية لا كرتي الشيء طلع وفورته ولا يلاك اللح إن أنا هديك لو بالخاتية سوح بعدي وياه وتعدي كروي وحمد كانوا الغنيا وحقولنا على كارلي الغنيا دون ما يعاود وقت لأنه واحد يسوق يسحب ضبا هو شو ما قلت أنت إذا أول الأسبوع بتاعي واحد مريا قلب كتاريخ ويا قلب كلمة كده كي وأنا هو ده أصلها وأنا لا هاي ما سبيلي وحال جنسي ما سبيلي هالجري وحال لو عدي هذي لو عدي كوايرة ماشي دي هاي تبى هال مركا وحلوي مريا دي لو عدي كوي يقول أنا ده الأسبوع هذا لو عدي سترى واحد يقول يسعى به لكن يقول بالعربي إسلام كان لها واحد صورة أفراي طب هو حلقوا يعني كي يقول بالعربي لكن سألك صح ولا أكره هذا ده مصلى الله عليه ولا أكره لك يقول بالعربي وحصل صح هاي وتقول كوا هريت يقول كوا قلبي وين كبتشوا هريت وأدوار بلودي الباس بيليها جلسوا باس بيليها كو هاي كلا علبك وحياة هي وحال وحال حديثك مكتبلكوا يعني ده واحد كان هي ما يسكت فيه يعني لبعد ويرد صوب اللي يوم حدي واحد يقول قطنا لا كأوجه هي كريا حدي هذا أبو يعني هذا كقطنا لا واحد اللي جالس دورة قوة بريت إلى لا تشوفه يدتك وحال الضوء كيف قالوا قيمة هي ماشوا لنا كفكار كذا قيمة كاسيوتشا ما هي شركة كذا كباية وواحد اللي فافلينه إنه جري عند قيمة لا تحسب كاي بكعاو هالكلام ده واحد يشوف على مشروع أنا ما سوق هذا سوق هذا ده واحد كاي مسؤولية البعض يعني واحد يجي هذا يقول السلوك ولا شيء قال بدأ يدي والله شيء حاجة تاريخ ما كان عندي إلى الولي لا ما السلوك هذا دول يسووا حين الواحد حاجة وجود أهل كيلوتي أما بدأ حسن قرار أما يديك وحي أبغى شيء تلا إلى حريان شيء يجيب عليك كثير وحاجة تاريخنا تعرف واقع ولا مفتاح وصار قدام دول بدو دي سواد اللي ستيري أنت هتقول قطان ده أولاد دورة وارهب لو وارد تاكل باكر يا بطل أو ده قرحين تباشي كي وارسا كل وارسا حدي هذا ما يكلوا ويدانا ده بخاتياشي ده ولا ده كهربائي ولا يقع عليها أنا بخاعه وواحد تعالى أو واحد صوتي واحد لا أو ما حد واحد تعود صنيع قول كتاريخ وبعاه وحسوق على له ريتي سيد بيتي صوتك خلاص دم كائن ممكن لبعض يدل يعني أوكي أو كائن في ريتي صوب عندك يبقى ملايين